kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka Somali Cable waxaan ahay Maxamed Cabdiqani Salaad qodobada wararka dunida aad ku daawan doontaan daqiiqadaha soo socda hadii ay beedmo waxa kamid noqonaya kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalanta Yemen waxa ay sheegtay in ay weerari doonaan sirdoonka Israa'iil ay ku leedahay Soomaaliya waxaan eegi doonaa warbixin dheer oo ay kaga hadleen arrimahaasi iyo hanjabaadooda qodobada kale waxa kamid noqonaya dawladda Iran waxa ay sheegtay in cawaaqib iyo waliba xisaab xumo ka weyn midii hore ay la kulmi doonaan Mareykanka iyada oo digniintan la soo mariyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran wasiirkooda Abbas Araghchina uu kaga hadlay waxaan eegi doonaa oo aan isdul taagi doonaa warbixintaasi sirdoonka Mareykankana waxa ay ka shakiyeen xog Israa'iil sirdoonkoodu ay la wadaageen CIA-da Mareykanka waxaan eegi doonaa macluumaad ku saabsan xogtaasi sirdoonka Israa'iil uu la wadaagay CIA-da Mareykanka balse la sheegay inay tahay mid aan lagu kalsoonayn qodobadaas iyo wixii inagu soo kordha ayaa daawan doontaan soo dhawaada saaxiibayaal qodobka ugu horeeya aynu ku bilownay kooxda ka dagaalanta Yemen ee Xuutiyiinta ayaa waxa ay sheegeen in weerar xoogan ay ku qaadi doonaan sirdoonka Israa'iil ay ku leedahay Soomaaliya xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda Xuutiyiinta Yemen oo lagu magacaabo Maxamed Al-Bukhayti ayaa waxa uu sheegay in kooxdu ay beegsan doonto joogitaan kasta oo military ama sirdoon oo Israa'iil ay ku yeelato Soomaaliya iyo deegaanada kale ee ku dhow xuduudaha Yemen hadalkan ayaa waxa uu yimid xilli ay sii kordhayaan xiisadaha ka jira badda cas iyo waliba marin biyoodka istiraatiijiga ah ee Bab el-Mandab Al-Bukhayti ayaa waxa uu hadalkani sheegay Arbacadii sida ay baahisay warbaahinta Iran laga leeyahay ee Tasnim digniintan ayaa waxa ay sidoo kale ku soo beegmaysaa iyadoo kooxda Xuutiyiinta ay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta ganacsiga ee maraya biyaha gobolka iyaga oo ku doodaya inay beegsanayaan maraakiib lala xiriirinaya Israa'iil ama sidoo kale dalalka taageera talaadadiina weerar lagu qaaday markab xamuul ah oo maraya Bab el-Mandab ayaa lagu soo waramay inay ku dhinteen 6 qof oo ay ku jiraan 4 shaqaale oo markabka saarnaa iyo 2 qof oo Yemeni ah oo gurmad ka waday goobta 10 qof oo kale waxa la sheegay in ay iyaguna ku dhaawacmeen weerarkaasi iyadoo Xuutiyiintu ay ku andacoonayaan in markabka uu siday qalab military oo Sacuudiga loo waday inkastoo sheegashadaasi aan si madax bannaan loo xaqiijin hanjabaadda cusub ayaa waxa ay xoojinaysaa digniino hore oo kooxda Xuutiyiinta ay ka soo saareen joogitaanka Israa'iil ee ka jira maamulka Somaliland iyo guud ahaanba gobolka Badda Cas Bab el-Mandab ayaa ah marin muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah waxaana kordhay walaaca laga qabo in weerarada iyo hanjabaadaha cusub ay sii wiiqaan amniga maraakiibta iyo isku socodka ganacsiga dhankaas iyo gobolka bariga dhexe hadii aynu eegnana wali waxa ay u muuqataa midi ku taag wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa waxa uu sheegay in tallaabooyinka Washington hadii aysan joogsan ay la kulmi karaan cawaaqib xumo ka weyn midii hore mar walbana ay u diyaarsan yihiin isdifaac nafsi ah in ay samayso Iran wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa waxa uu Mareykanka uga digay waxa uu ku tilmaamay xisaab xumo ka weyn midii hore oo ka dhalan karta tallaabooyinka Washington ee ku aadan marinbiyoodka Hormuz Araghchi waxa uu sheegay in Mareykanka uu horay ugu dhacay xisaab xumo ee ka dhalatay fashilaad dhinaca xogta sirdoonka ah oo ay ku jirto markii uu bilaabay dagaalka ka dhanka ah Iran ee gobolka Araghchi wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa qoraal uu soo dhigay barta X waxa uu ku sheegay in tallaabooyinka Mareykanka ee marinka Hormuz ay yihiin cawaaqib xumo ka weyn midii hore wasiirka arrimaha dibadda waxa uu sheegay in xog qaldan oo dhanka sirdoonka ah ay ka khatar badan tahay warar been abuur ah isagoo si gaar ah u dhaliilay qiimeynta sirdoonka ee Washington dhanka kale Hussein Taibi oo ah taliyaha ururka Passage ee hoos taga ilaalada kacaanka Iran waxa uu sheegay in marinbiyoodka Hormuz uu hoos yimaado gacanta iyo maamulka Iran hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo xaaladda marinbiyoodkaasi ay cakiran tahay isla markaana isu socodka maraakiibta uu hoos u dhacay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wali waxa uu ku adkeysanayaa in Mareykanka uu si buuxda u maamulo marinbiyoodkaasi halka Iran ay sheeganayso inay gacanta ku hayso marinkaasi Hormuz ayaa ah marin muhiim u ah dhoofinta shidaalka caalamka waxaana xiisad kasta oo ka dhalata hadalkaasi
ama falcelinada kala duwan ee Washington iyo Tehran ay saameyn weyn ku yeelan kartaa amniga iyo ganacsiga tamarta adduunka. ugu dambeynna Mareykanka ayaa waxa uu shaki ka muujiyay xog sirdoonka Israa'iil la wadaageen CIA-da Mareykanka. xogtan ayaa waxa ay sheegaysay qorshe lagu dili rabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. ha yeeshee falanqeeyaasha iyo waliba hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka waxa ay sheegeen kadib markii dib u eegis lagu sameeyay xogaha Israa'iil dhankooda ka yimaaday ay noqdeen kuwo aan kalsooni ku filan haysan. sirdoonka Mareykanka ayaa la sheegay in uu shaki ka muujiyay xog sheegaysa in Iran ay qorsheynaysay dilka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sida uu qoray wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa Mareykanka. xogtan ayaa Israa'iil waxa u gudbisay CIA-da Mareykanka, balse falanqeeyaasha sirdoonka Mareykanka ayaa ku tilmaamay xogta mid aan lahayn kalsooni ku filan ama la isku halayn karin. warbixintu waxa ay sheegtay in xogta hanjabaadda ay inta badan ku saleysneed ilo Israa'iil oo kaliya, halka qaar ka mid ah saraakiisha iyo falanqeeyaasha Mareykanka ay u arkayeen xogtan mid kalsooni hoose leh oo tayadeedu ay hooseyso. CIA-dan waxa ay sida la sheegay maamulka Mareykanka la wadaagtay walaaca ay ka qabto saxnaanta xogtaasi. arrintan ayaa waxa ay la xiriirtaa go'aan qarsoodi ah oo lagu bedelay diyaaradii uu Trump raacay xilli uu ka ambabaxayay magaalada Ankara ee dalka Turkiga kadib shirkii NATO ee bishii hore. madaxweyne Donald Trump ayaa talaadadii waxa uu xaqiijiyay in diyaaradiisa si lama filaan ah looga bedelay garoonka, balse waxa uu sheegay inuu kaliya raacay talada ciidamada sirta iyo militariga. wararka ku saabsan hanjabaadda la sheegay ayaa hadda waxa ay dhalinaysaa su'aalo ku saabsan kalsoonida xogtii loo gudbiyay maamulka Mareykanka iyo sababta loo qaaday tallaabada amni ee aan caadiga ahayn. Donald J. Trump waxa uu sheegay in go'aanka uu ahaa mid ay soo jeediyeen saraakiisha amniga, inkastoo faahfaahinta ku saabsan xogta hanjabaadda aan si rasmi ah loo shaacin. waa hagaag qodobadaasi ayaa ahaa qodobada ugu waaweyn wararka caalamka. wixii soo kordha halkan ayaa noo madal ah. Cadaala ayaa farsameynaya tan iyo kulan dambe. nabadgelyo. soo ma aragtaan waa degdeg, waa ammaano, waa fudayd, waa hal martaaba oo kaliya. ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah. Dahab Bay, hal taabasho oo kaliya.